mahad oo dhan ilaahay u sugnaatay maanta fursad loo siiyay dad badan aysan helin in qodba jimcadan qiimaha badan masaajidka Dr. Xasan macallin gaab soo kana keenay waxa kale oo mahad ka suko mahad iskala gudiga masaajidka Dr. Xasan oo ayaguna maaragtay noo ogolaaday ama go'aansaday arintan dhammaan ummadda reer Beledweyne ay tahay inay isku tagaan khudbadii ku soo qaatay aad noogu faahfaahiyay runtii Sheekh Cabdirasaaq ilaa khayraasiyo iyo khudbadii masaajidka lagu soo qaataba aniga shakhsiyan oo arintan u istaago waday haddana wax weyn ay ugu soo kordhisay dilitra badan bay siinaysaa marka meesha waxaan u malaynayaa in lagu daalay laba qodob aan rabaa inaan ka hadlo qodob sheekhan la wadaagaya oo baaq waxaan u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhiigiisa ku qabanayo gobollo kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan Kismaayo ka mid tahay oo Shabeellada Hoose ka mid tahay oo gobolka Hiiraan uu ka mid yahay oo Galgaduud ay ka mid tahay dagaaladaas in la joojiyo dibku weyn hadda Soomaaliya haysta federaal noqday من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقفكي قفدنا وقفوا دلي ودلي الله محكمة ذي ولو كان قال هالنقضة إذا هي أنتوا ومي وإنسان وما سجلوا لمية وفرس هذه ما أنت قف سلام الدنيا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قفكي قف نور يعني قف من نور يكتب لكن سيد النبي قوير عليه الصلاة والسلام qofka muslimka ah waa in gacantiisa iyo maaragtay carabkiisa laga magan galo qofkaas muslim la yiraahdo marka hadii aadan laga magan galin waxa xaqiiqo inaad ku dhacaysid ku nabiga sheegay alayhi salatu wasalaam ama aayadahaas ay sheegeen ilaahay markuu quraankiisa maaragtay ummadda nabi maxamed uu kula hadlaayay wuxuu sheegay in ummadda nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ay tahay ummadda ugu khayrka badan maxaa la yiri oo sabab looga dhigay ilaahay qaraabo la yeelay maya لكن وحلا يري معروف كنا وارهبتان منكر كنا وارهبتان معروف كنا وافرتان سيدا درادت ولالك إسلامك ولالك بولا ولالك أود وذاقاتهين ولالك سوهن وذاقاتهين بالله عليكم ليجيسو كوما بنان دقالك هلا جوجيو دمان نبضورنا علماء وبحسيرة دقالة سالة جوجيو كتابك قرآنك هلا حكمه أنت دولة ماركتة كي ما أنا يسوي ذيك لو وركت مسؤولية داس ورقفك يقف دلا سوما هاي كبقى في النقف كسمي كل جيس ماركتة يسوي كوا كان لو أذيك كنا إذا عمي ما يسا فذلك إذا هذا قف بيرتي سفلنا يا أما بابور صارنا أنت اللي دلا وحلله لا بس أنا كهر شن سنة كهر بلا كهر أيو نن أنا سو عنه دلا أما ولا هينه دلا warxukunku sidiisaba haduu xataa walaalka dileegacantaada adiga kuma gooy kartid nidaam iyo system loo soo maro leh marka fidmadaas ummadoo dhan ay camimaysa marka siyaasiyiinta aan deegaanadiina aanan imaanin oo ku fashilmay deegaan doorashadooda iyo dalkan inay wax ka qabtaan inay maanta ay isku kiindiraan ayagoo ciyaalkooda halka aysan deganayn oo ceelasha maaragtay biyaha waxba ka cabayn oo beeraha waxba ka falanayn inay isku kiindiraan isku kiindilaan oo markaad boqolaal iska laaysan oo barakacdaan oo abtiga dishid oo adeerka dishid oo maaragtay walaasha asaay u saartid oo habareerta asaay u saartid inaad markaas haddana inta la isku yimaado la heshiiyo oo haflaysi siiyo war adiga maxaa ku dhimatay arrintaas la isweydiiyo marka taas halkaas aan ugu baxay gudaha Soomaaliya qaasatan deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne maalmaha dhibaatada ka jiraan intii dhimatay Ilaahay u naxariisto inta kale oo maaragtay dhaawacana Ilaahay caafimaad siiyo haddaan soo laabto arrinta maanta halkan maaragtay culimadu ay nooga hadleen waxaan u malaynayaa marar badan idaacadaha waa laga dhageystay hoteelada waa lagu qabtay laakiin baryahan masaajidadii ayay taalaa وخطبتي جمعات كيس الدحاد مقالة Beledweyne lagu soo qaato arrintan culayska ay leedahay مساجد النور ومساجد عبد الله يقانا lagu soo qaatay مساجدka ugu weyn magaalada Bardaha lagu soo qaatay kan maanta oo Dr. Xasan lagu soo qaatay waana sii soconaysaa waxaan soo diyaarinay dad cilmiyeed tiro badan marka la sameeyay qaabka ugu sahlan oo magaalada Beledweyne biyaha ay iskaga xiri karaan ayagoo qaxin ayaa la soo sameeyay
waqti badan ku baxay waa la soo koobay waxaa la isku fiiriyay haddii dowladda federaalka hadda dalka ka jirta oo la sugo oo hadda 4 sano hadda ugu dambeysay jirtay hadda gabaabsi ah iyo Hirshabeelle 4 sano jirto ayadana gabaabsi ah oo hadda campaign ku jirta intay ka dhisanto iyo qolada dhisata intay sanad iyo xafiisyada la wareegayaan يعني haddana biibaxadu waa imaanaysaa waxaa la rajaynayaa hadda hadduu ilaahay xal kale uusan keenin 3-4 bilood intaan la gaarin bayna imaanayso marka maalin kasta ma la sii qaxaya ciyaalka dusha ma la saaraya annagu waxaan u bixinay sinto dadkoo dhan way sintay waa dhibaato wadareed haddaad 100 sano jirtid haddaad 1 sano jirtid cid kasta oo magaaladan degan taajir iyo faqiir waayeel iyo caruur kulli waa saamaysay waad ogtay masaajidkan qiimaha badan iyo masaajidada badan oo magaalada ku yaala biibaxadii waa la xiray dugsiyaalkii quraanka la xiray marka xalka ilaahay gacantiisa ugu jira culimaduna waa sheegay ilaahay loo toobad keeno dadkuna malaa'igu cirka ka imaamayso annaga aan wax qabsano ayaa loo baahan yahay annagu waxaan ku qiyaasnay magaaladan dadka degan ilaa 100 kun oo qoys aan ku qiyaasnay waa ka badan karaan waa ka yaraan karaan qoys kasta waxaan fiirinay isku celcelin $100 inay ku qaxaan 100 kun oo qoys marka $100 lagu dhufto waa 10 milyan lacagta dhan ay biibaxdo oo lagu maareyn karo magaaladan laga qaxaynin 7 milyan ugu badan dad ka badan gaarsiina waa jiraan laakiin sida saxda oo xal lagu heli karo ilaahay baa xal haya waa maaragtay waa 5 milyan ilaa 7 milyan inta u dhaxaysa waa oo fiirso waxaa kale toon fiirinay waraaqaad haysinay ku qoran tahay waad arki kartaa ilaa 10 xal aan haynaa laakiin hadda ilaa 3 xal aan ku soo koobnay magaaladan dadka ka qaxay oo wadanka dibadiisa jira oo waxgaradka oo ciddoodu markay dhibaato ay qabsato u soo gurmada waxaa lagu qiyaasay ilaa 50 kun oo qofood inay yihiin qoys kasta marka ciddiisu ay qaxayso wuxuu u soo diraa $500 $500 oo 50 kun lagu dhuftay ayadana waa 10 milyan ما 10 milyan ma ka badan tahay laakiin anagu waxaan fiirinay inuu $200 bixiyo meesha $500 ka bixnaa $200 kaliya ma bixiyo $200 lagu dhuftay 50 kun waa 10 milyan lacagta loo baahan yahay waa 5 milyan ama 7 milyan wali baaqi ah haysataa war halka aan ka sugayno United Nations Mareykan aan ka sugayno Ruushka aan ka sugayno dawlad federaal oo tamar daran oo ayaduba rafaadsan maamul maaragtay asuguba maaragtay xaradii ku jira oo dadkiiba xiriir la lahayn oo sida ku jira oo cabsanaya oo warba ka haynin wax badan oo qariyada ka dhacaya bilaa calaykum hadaa sugtaan waqti dheer waa la qaxaya runta ay sheegaan magaaladan laba go'aan mid ina qaadato waa inay buuraha deegaan ee magaaladan la iskaga guuro oo guryahan dhan ay faaruq noqdaan oo laga tago iyo in aan maaragtay $100 ama $200 aan bixino su'aalo tiro badan baa ka yimid waxa la isweydiiyay dad badan nala soo xariiray oo dalka gudihiisa jooga iyo dibadiisa jooga waxay yiraahdeen lacagta diyaar waa bixinayna laakiin laba arrin nooga jawaaba yaan aaminaha lacagtu diibayna sheekuna hadda waa kii ka hadlay hawshiya fulinaya hawsha fulitaanka dadka dhib ma lahan oo shirkado tiro badan oo maaragtay adduunka oo caalami ah ama gudaha oo maaragtay hawshii aqoon u loo fulin kara jira laakiin dhibka ugu weyn waa aaminkii وقت مقالة وضعك دولة ولا قبل كان ماركت دولة كتلسا هذا شعب كله ما أمين كرنا أنا أقول مرك الله أهلنا كفير من أهلنا وكسو قبنا وراقد السد هذا يكون قرض هذا الأركتان وحنكسو قبنا مساجدنا هذا مقالة هو العلماء على الاستي ضد يرى على الاستي وآمن كتاب في القرآن كي هاي إلى غير سيء وورثة ماركت أنبياء واي وماشي كلية وماركتي ومدان اسكو ودا كرتا واي وماشي كلية أمانة إلهي يمد ماركتي بالآدنك ونمشي كلية دوشة صارن كرا علماء صارت إن هور كعان قد فتح هذا الجرا أيقونا ماركتي إن علماء سي قدجا ماركتي لسكو بيريو والرب الشاجرة وأيقونا ماركتي أن مالن دودي على لباتن والرب جارا أن كلاني والمرتيا دي صارين أردت أن يكون تاجر يعني قد قاسوا لسكو كاني وإنا يحرك عن برنامجك ومضى هري مادي أكاونادي تلفونات اللي جهلا يو شقدين إنا باللابن قد يرى كوان كدبنا قد يال تربضن وحافظي وشقايا وهيك الله شقايا وشرك وقبقابية وحسابية أي يلمايا قد فتح هذا وحلا صعتان قد فتح هذا وحلا صعتان
maaragtay inuu dadaalay laakiin hadda fatahaadii horeeto iyo ilaa iyo mid laba fatahaad oo guddigu hadda jiray iyo ilaa tii saddexaad oo hadda la rajaynayo waxaan u malaynayaa guddiga fatahaadda in lagu haddana biyo baxadii labaad inay timaado marka guddiga fatahaadda waxba uga baqaayaaba maamulkan hadda wajiyahaan qurac iyo qasax soddonkiisana isku bedelayay wax la taaba karana dalka guud ahaan iyo magaalada beledweyne oo ku soo korin waxaa ka baqaya guddiga fatahaadda oo hadda aad loo aaminsan yahay oo annagu aan aaminsanahay oo sharaf badan in ayaguna ay maaragtay ay sidaasoo kaleeta noqdaan 1 milyan oo iyo 600 oo dhow ay hadda hayaan lacagta aan sheegayno marka laga jaro waxa dhabo dhinaanayo 4 milyan iyo wax la mid ah marka guddigaasna waxaan ugu baaqaynaa iyo culummada inay arrintii wada fadhiistaan ee guddi wada jira ay soo saaraan ay maaragtay ay hor kacaan annaguna waxaan ballan qaadaynaa hadda dad badan nala soo xariir sharadan hadda wiil yar wuxuu soo wacay bakaaraha wuxuu yiri hooyada ka qaxday magaalada hadda biyo baxday $400 ayaga baxdo office waxa qoyska hooyadiisna waxa laga rabaa $100 wuxuu yiri 400 ka badan inay bixiyaan diyaar ah nima ingiriisiga naga soo wacay wuxuu yiri laba guri ay ugu taalo yiri beledweyne biyo baxadii hore tan $200 aan ku dayactiro tan hadda $200 kale tan laga rabaa hadda iska dhaafiyo barnaamijka aad wadana soo gaaray lacagtan guriga ku bixin raba waxaan rabaa inaan ku bixiyo ilaa dul ku rooyahay fatahaad office waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo 3 tusaale laba beledweyne ka dhacday midna Boosaaso ka dhacday midda labada beledweyne ka dhacday hadaan ku hormaro waxaan la sheekaystay nin ka mid ah guddiga masaajidka bardaha marka la dhisay oo sheekh ah wuxuu yiri markaan dhisaynay horta wuxuu yiri qalabka materialka oo dhan oo haday bir tahay ama shamiito tahay ama musbaar tahay ama alwaax tahay ama maaragtay ay ciid tahay ama jaayta ama dhagax tahay dhammaan lacag ma bixinayo dadka sadaqaystay reer beledweyne waxay ugu yaabadnadu ii sheegay mar aan mikrofoonka ta qabsanaa dadku waxaan ka codsanay uu yiri war ciidii iyo dhagaxii iyo khayrkaad keenaysaan boos uma hayna waa idin bareynaa naga joojiya annaga idin soo sheegayna baahi markayna qabato annaga idin soo sheegay 400 intaasoo kun oo kaashana waa qabteen midii la tahay dadkaas haday hor kacaan barnaamijkan u guuldareysana ma idin la tahay kala ma guuldareysana marka waa tijaabo la sameeyay oo maanta lagu faani karo arinta kale oo beledweyne ka dhacday waxay tahay 1997 iyo hadda sheekhu tusaale soo qaadanay Boosaaso uu tagay biyo baxa ka baxday magaalada waa ogtay aad loo qaxay حتى بودوينكي أو مقالنا كفوا جالسين بودو نور فرح تولد نور فرح كانوا واجبسي بودو كوبات واجبسي أيربورك بلد واجبسي مقالنا حتى بقانا يلا برجع اسمه علن وهذا اللي ذاتي ده ضح بحكرة وايا رايا مركي هيدو يعد كسر على الداميو حل واي أيها وقاس خليف وقاس رابله إلهي هون حريستو أيها ويستاجي dadkiisu wuxuu heli karaa ka ururiyay xoolo soo urursaday bundada noor farx oo dhisay madaba ilaa xamar iyo halkan ay kala go'an iyo waqooyi wuxuu sameeyo kaleeto wuxuu dhismo ku bilaabay bunda koobaad hay'ada u yimid waxa la weydiiyay warugaasoo waa shaqo badan qabatay noor farx oo soo dhistay bunda koobaad dhisaysa dhaqaalaanta kaash wuxuu yiri dadkii gaabkaan bundada noor farx ariya ku soo dhisay dhahay midaan hadda bunda koobaad loo aan ku dhisooha airportkana geelan ku dhisay laakiin kaalmaya kaalay waa baahanay ma dhig in wax la qaban karo ninkaas ugaaska oo dhaqanka maar dadku ugu sareey kamid ahayna waa noo cadeeyay ilaahay ha u naxariisto culummada beledweynena waa noo cadeysay oo dhisay masjid nuur masaajidka bardaha masaajidka maaragtay masaajid tira badan magaalada ku oo xisaab lahayn maaragtay masaajid la garaafalay si qurux badan maaragtay sidaas oo kale tii magaaladan u qurxanaa kartaa biyo baxdana loo celin karaa waa tusaalaha labaad tusaalaha saddexaad ugu ballaaran rabaa in idin ka sheekeeyo 2 sano laga joogaa horaantii 2018 ka dhacday doon ama markab oo imaaraadka ka yimid oo lacag maaragtay ku rarnaa ilaa maaragtay 7 milyan ilaa 10 milyan u dhaxaysay ayaa caariyay dekada Boosaaso meel ku soo dhow dekadii ku soo xiro waay hantidii oo dhan waxay noqotay inay qasaarto Soomaaliya oo dhan ma iska lahayd qaasatan Puntland u badnaa waxa la isweydiiyay maxaan sameynaa kadib tala la keenay waxa la yiri dekad macmal aan sameyno nin oo guddiga hogaaminaya arrintaas qabtay wuxuu yiri waxaan isweydiiyay dhahay
waagi horeeto markabka ama doonta dekada ku xiran jirtay laakiin hadda dekadii markabkii ku xiranaysa iyada u tagaysa dhammaan reer Boosaaso isku soo baxeen hadii ahaan lahay ganacsato dumarkii aqoon-yahankii wala isku soo baxay waa hoggaani samaystaan kadibna waxa go'aan la qaatay in markabkaas intiisa la badbaadiyo waxaan qiyaasayaa 316 mitir ayay duugeen 30 mitir markii la gaaray container la dhigay inta la gooyay ciid laga buuxiyay si hadhow culayska marka la daramo ciid aysan u kala cararin motooradii wax lagu alxamay dad badan oo qadaraasi haystay oo qadaraasi haystay 7 baabuur oo nin shirkad oo qadaraas u haystay ayuu ku wareejiyay guddigii maaragtay dekada macbalka sameynay iyo Caterpillar iyo Baallo dawladda minishibiyada ama dawladda hoose Boosaaso waxay keeneen hal baabuur iyo hal Caterpillar ay keeneen dadkii ganacsatada ahaa oo shirkadii waaweyn nin motor keenay nin baabuur keenay kulli waa la isku yimid dhalinyartii waa soo baxeen nin dhagax qaada nin maaragtay ila ciidii rara gabdhihii cuntay karinay shaqadii waxay socotay 9 maalmood ay socotay maalintii 10aad baabuurka ugu horeeyay laga soo dejiyay markabkii waa la guuleystay dawladii Puntland oo dawlad goboleedka Puntland oo meesha ka hadlaysay nin mas'uul u hadlay wuxuu yiri waxaan la ku eedeeyay u dhahay inaan anagu shaqada aanan kamid ahayn laakiin waa baqno yiri waa hor imaan weynay maaragtay TV-ga hortiisa goos waxaan baqaynay yiri arrintan waxay nala ahay suuragal inay sanahayn hadhow inta shaqadii bilaawna haddaan ku guulaysan weyno annaga oo dawlad oo maamul ah waxooga caawin ugu ah laakiin hawsha waxaan ka wadnay amniga sugayna dhaqaalaha wax ka bixinayna يعني لكن وقدرنا باش كريحين وفرسو من قد جو هذا وحيري مركز أنت بلابيني وحيري وحنا له ووالنتين ما أنت بلدنا وحلو بهاي هاي طبعاً قفوضة وهلا وهوش بالله مركز تو وحفي على سمينا هنا ضد ماركتي وح هما وهيستا waxay dadka kale u jeedaan markii yimaadina dadku waxay ku yiraahdeen qofkan waa waalaya nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markii la soo diray maxaa la waa majnuun Soomaali lahayn cad malaynaysa hadda nin maskiin oo Cabdiraxmaan oo kale taa socdo dhahaya waxa xalal loo heli karaa warkan waa waalaya leeyahay dadka qaylada ka dhaafo Soomaali maanta waxaan u baahanahay reer beledweyne waalan oo arintaas ku dhaqaaqa waxaan ugu baaqaynaa dhammaan reer beledweyne adikoon buulo burtay u baahan oo maxaas u baahan oo matabaan u baahan biixreenka waa samaysan karnaa mid kale waxaad ogaataan maalintii shaqada la bilaabay dhab naga noqotana adduunka oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan waxa xaqiiqa arrintan inay qayb ka qaadanayaan oo annaga nolol ka orod badnaa doono marka sidaas daraadeed culimada iyo cid kasta waxaan ku boorinayaa fadlan maanta waxaan u baahanahay warka aan soo gabagabayno maanta ficil aan u baahanahay war 3 bilood oo kale tafiiri biyo baxada loo baahan yahay in la xiro ma ahan buurarkii hadda la dhigay maaha guddiga fataada hadda ku fikiraan inay buurar dhigaan ay yiraan biyo baxadan ku celinayna war waxaas billaah calaykum waxa loo baahan yahay wax oo maaragtay la hubo oo boqolkiiba 99 alla ka sokow la hubo ilaahayna tala la saarto oo ah biyo baxada xireen ama biyo xireen dhab ah oo biyaha dib loo isticmaalin karo oo koronto laga sameyn karo oo biyo gelin laga sameyn karo magaaladan ayaa maaragtay loo baahan yahay marka guddiga iyo culimada isku tagaan annaguna ma coodanahay waxaan hubnaa shaqadan in lagu guulaysan doono marka wadaadadii waalnay guddigii waalnay dhalinyaradii waalneed aqoon-yahanadii waalnay fadlan soo baxa aan waalanno oo ilaahay dawaaladayna ha noqoto mid cilmi iyo ilaahay dookuray ku dhisan iyo ummadda u shaqeyno na tusno annagoon cid ilaahay moogi cid kale to aanan kaalmo weydiisan in asbiyaas iska xiri karno aad aan idinku mahad celinayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh